kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Fagaare Production qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dib u dhac mar kale ku yimid jadwalkii doorashada ee khilaaf cusub oo soo baxay wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya ee khilaafaadka jira ayaan xogo idinkaga haya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo sheegay in muranka ka dhashay doorashada loo gudbin karo maxkamadda sare ee dalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo muddo kadib la arkay shaki ka dhashay kulan uu maanta la yeeshay Cali Guudlaawe saddex qodob oo looga hadlay kulanka dhexmaray Sheekh Shariif iyo Cali Guudlaawe ayaan xogo idinkaga haya ra'iisul wasaare Rooble oo amar degdeg ah soo saaray soona fargeliyay dagaalka wasiir ka tirsan xukuumaddiisa qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay wajahayso xaaladii ugu xumeyd oo bani'aadanimo ah wararka caalamkana waxa ugu waaweyn Turkiga oo sameystay hub casri ah oo uu horay ugu diiday Jarmalka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena waa Khamiis 15 July 2021 hadaad nagu cusub tahay daawada subscribe sar furgan balaalka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka sidoo kale like sar muuqaalka si uu dad badan u gaaro warkii oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa wararkeena sida qorshuhu ahaa waxa maanta la filayay in la bilaabo soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada Soomaaliya 29 bishii Juun oo 2 toddobaad laga joogo ayaa waxa la soo saaray jadwalka doorashada iyo sida loo qabanayo doorashada dalka 15 bisha July oo maanta ku asteysan waxa loo balansanaa in ay bilaabato soo xulitaanka iyo diyaarinta ergooyinka doorashada sida ay horay u go'aamiyeen golaha wadatashiga qaranka waxaa jira khilaaf cusub oo gudoonka baarlamaanka dawlad goboleedyada ay ku rabaan in iyaga loo madax banaaneeyo cid ku tartamaysa doorashada aqalka sare balse faragelin lagu eedeeyay ma jirto wax war ah oo ka soo baxay guddiga doorashada dadban ee Soomaaliya uu kaga hadlayo arinta dib u dhaca ku yimid soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada Soomaaliya sidoo kale waxaa jira khilaaf culus oo ka taagan gudiyada doorashooyinka sida guddiga doorashada Somaliland waxaana isku haysta Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxayna toddobaadkan gudihiisa doorteen laba gudoomiye iyo ku-xigeen guddiga doorashada gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa khilaafka ka taagan waxa soo fargeliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble isaga oo shalay la kulmay xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland balse waxa kulankaasi ka maqnaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi isaga oo uu goobjoog ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed sidoo kale khilaaf ayaa ka taagan arinta gobolka Gedo oo ay isku hayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa dhawaan si rasmi ah loogu wareejiyay gacan ku haynta doorashada ka dhacaysa Garbaharey balse gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in uusan aqbali doonin in guddi ka socda Jubbaland uu soo gaaro Garbaharey isla markaana aysan aqoonsaneen Axmed Madoobe wararka doorashada ayaan ku sii soconayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashi Yuusuf Axmed ayaa sheegay in maxkamadda sare ee dalka ay gali doonto cabasho kasta oo laga soo gudbiyo go'aanada ay qaataan gudiyada doorashooyinka gudoomiye Baashi ayaa sheegay in ay sharci daro noqonayso in ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ku heshiiyaan in aan maxkamadda lala aadi karin dacwadaha ka dhasha doorashooyinka waxaan rabaa inaan cadeeyo marka ay bilowdaan doorashooyin go'aan kasta oo ay soo saaraan gudiyada waxaa cabasho looga qaadan karaa maxkamadda sare ee dalkana waxay diyaar u tahay in ay ka garnaqdo cabasho kasta oo ka dhalata go'aan maamul oo ay gaaraan gudiyada doorashooyinka ayuu yiri gudoomiye Baashi Yuusuf Axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa hadalkan ka sheegay shirka arrimaha garsoorka oo ka socda magaalada Muqdisho maalintii labaad hadalka Baashi wuxuu imaanayaa xilli dalka ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin culus oo ay ka dhalan karaan cabashooyin badan waxaa xusid mudan in Baashi Yuusuf uu xiriir iyo gacan saar dhow la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay suurtagal tahay inuu ka shaqeeyo kaliya danaha nabad iyo nolol wali wararkeena ayaa daawanaysaan daawade like sar muuqaalka si uu dad badan u gaaro markana madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kale ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka
kulanka Sheekh Shariif iyo Cali Guudlaawe oo ka qabsoomay hotel ku yaala garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka iyo xiisadaha ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan Hirshabeelle. inta uu socday kulanka ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee dalka uga mahadceliyey Cali Guudlaawe doorkii uu ka qaatay heshiiskii doorashada ee kal hore lagu gaaray Muqdisho. waxa uu ku ammaanay kaalinta uu ka ciyaaray heshiiska doorashada, taasi oo dalka u jihaysay dhanka iyo doorasho, isla markaana ka badbaadisay jahwareer siyaasadeed iyo mid amni. si kastaba kulanka maanta uu Cali Guudlaawe la qaatay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa imaanaya xilli uu maalmihii dambe uu magaalada Muqdisho ka waday kulamo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xalka gaarista tabashada reer Hiiraan. wararka laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay ciidamada Jubbaland ay xukun dil toogasho ah ku fuliyeen Xuseen Aadan Cali oo lagu helay inuu kufsi u geystay gabar 3 sano jir ah. gabadha yar oo uu dhaawac daran ka soo gaaray kufsiga lagula kacay ayaa markii dambe u geeriyootay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladeeda. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya Xuseen Aadan Cali inuu gabadha yar u ahaa adeer, isla markaana uu qabay hooyadeeda, iyada oo wax lala yaabo ay noqotay inuu faraxumeeyo gabar yar oo uu hooyadeed qabo. dhacdadan naxdinta leh ayaa hadalhayn badan dhalisay, waxaase dadka deegaanka ay soo dhaweeyeen xukunka dilka ah ee ay Jubbaland ku riday ninkii ka dambeeyay falkaasi. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah dumarka sida kufsiga, kaasi oo meelo kala duwan laga soo wariyey, waxaana ugu dambeeyey Hargeysa oo kufsi iyo dil isugu daray haweeney lagu magacaabo Allah u naxariistee Hinda Cumar. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka ee loo yaqaano OJA ayaa ka dayrisay xaaladda bani'aadanimo ee Soomaaliya, waxaana ay shaacisay in haatan Soomaaliya ay wajahayso xaaladii ugu xumeyd ee dhanka bani'aadanimada. OJA ayaa sheegtay inay yaraadeen maalgelintii dhanka gargaarka ee samafalka, taasina ay uga sii dartay xaaladda adag ee ay haatan wajahayso Soomaaliya. sidoo kale waxay shaacisay inaysan bartamaha sanadkan hay-adaha samafalka dabooli karin baahiyaha aasaasiga ah ee ku dhowaad kala bar dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan. inkastoo celcelis ahaan 1.52 milyan oo qof ay heleen gargaar cunno bil kasta laga bilaabo Maarso ilaa May, haddana heerarka hadda jira iyo kuwa la filayo ee kaalmada cuntada kuma filna in laga hortago dhibaatooyinka meelo badan ka jira, ayay tiri OJA. qaramada midoobay ayaa sidoo kale intaasi ku sii dartay in hoos u dhaca ugu weyn ee haatan la dareemayo ay tahay cunno yarida oo dhibaato ku haysa dadka Soomaalida. warbixinta hay-adda gargaarka OJA ayaa sidoo kale lagu sheegay in sanadkan dad lagu qiyaasay 5.9 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani'aadanimo, kuwaasi oo 2.9 milyan oo qof ay ka barakaceen guryahooda kadib duruufo adag oo soo wajahay. ugu dambeyn warbixinta ayaa lagu sheegay in xaaladaha bani'aadanimo ee Soomaaliya ay uga sii dareen cimilada xumaatay, abaaro, daadad iyo saameynta cudurka COVID-19. qaylo dhaanta ayaa ku soo aadaysa iyadoo Soomaaliya haatan ku jirto marxalad kala guura, isla markaana la aadayo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay caalamka. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay bisha Abriil tijaabo ku bilaabi doonto taangiga lagu magacaabo Altay ee ah kuwa ugu casrisan ee adduunka laga isticmaalo, kaasoo muddo sanado badan ay ku hoolanay soo saaristiisa. Ismaaciil Demir oo ah madaxa warshadaha qalabka militariga sameeya ee dalka Turkiga ayaa khudbad telefishinka laga sii daayay Axadii ku sheegay in ugu dambeyn lagu guuleystay farsameynta taangiga Altay, dhowaanna la tijaabin doono. culayska ugu weyn wuxuu Turkiga ka haystay sidii loo heli lahaa matoorka awoodda badan ee uu ku shaqeeyo taangigaasi. horeyna waxay isugu fahmi waayeen Jarmalka oo Turkiga saaray cunaqabateen dhinaca hubka ah. waxaa soo baxay warar sheegaya in hadda uu Turkiga matoorkaasi ka iibsaday waddanka Kuuriyada Koonfureed, sidaasna ay ugu kuurgashay inuu samaysto taangigan ugu muhiimsan ee loo adeegsado goobaha dagaalka. daawadayaal, waanaga intaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production. aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. intaa ku kulmayno war caynkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.